الله على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد كسوق بكلاش محاضرة دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا سو أستاذ إدين شيء علماء يعني كسوين أمستردام مسجد القوى لو أيضا قرآن لو فردونا مع العمر أو كم إذا معلمين تمجال النايمة إن شاء الله تعالى فليتفضل أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. كوي عيدا القرآن كما قال أو مع كعمل خاطر إله نقدر إن شاء الله تعالى. طبعا محاضرتنا ما أنت حكوا صار سنتهاي maadaama bisha ramadaan ay nagu soo qood jirtay insha Allah taala oo maalmo kaliya ay naga xigaan bisha ramadaan iyo ahkaamteeda waxay noo soo jeedin doonaa Abu Bakar insha Allah taala. ما شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. mahad oo dhan waxay u sugnaatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah soo noogu kulmiyay halkan. waxaan kala u mahad celinayaa waxay tahay walaalaha soo qaban qaabiyay suutageliyay in ay dhacdo muhaadaradan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala. waxaan weydiisanayaa in ajr iyo xasanaad aanan la soo goobi karin uu siiyo. aamiin. walaalayaal in lagu kulmo meelaha lagu amaanayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala meelaha lagu sheegaya ahadiista nabiga sallallahu alayhi wa sallam fadli badan ayay leedahay aan halkan lagu soo koobi karin. nabigeena wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam qoom kuma kulmaan meel ayagoo raba inay amaanaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayagoo raba in ay isku sheegaan ahadiista nabiga sallallahu alayhi wa sallam haday sidaas sameeyaan ay kulmaan oo ay isku sheegaan ay amaanaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala meeshaas waxa soo degaya malaa'ig waxa soo degaya naxariista Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa soo degaya xasilooni ayaa soo degaya. markay muhaadarada dhamaato waxa la leeyahay istaaga idinkoo dunuubtiina la dhaafay meel kale laga heli maayo illa meesha Ilaahay lagu amaanayo maahane. mu'miniintana ayadooyinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala qulubtooda ayay dejisaa raaxa ayay dareemaan sida Ilaahay uu leeyahay alladheena aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. kuwa Ilaahay rumeeyay mu'miniinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala rumeeyay markay maqlaan hadalka Ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbiga ayaa u dega raaxa ayay ka dareemaan. sababtoo ah waxay amaanayaan waxay tahay midka abuuray midka siiyay nicmo walba midka siiyay labadan gacmood ay ku qabanayaan wax walba labadan in ay ku arkayaan waxyaabo kala duwan dhagahan ay wax ku maqlayaan qalbigan ay wax ku dareemayaan wax ku jeclaanayaan maskaxdan ay ku fakarayaan imisa ayaanan haysan lugahan ay ku soconayaan calooshan wax walba yani qayb walba jismiga kamida midka ku siiyay midka ku qoodiya markaad amaanaysid raaxa ayaad ka dareemaysaa qalbiga. sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa noogu tilmaamay waa shay loo baahan yahay marka qofka mu'minka inuu ku dadaalo meelaha Ilaahay lagu xusayo Ilaahay lagu amaanayo in uu aado u dhageysto
uuna badiyo waa shay loo baahan yahay imise ayaa hadda ku kulantay xumaan imise ayaa hadda ku kulantay xaflad oo qabiil lagu amaanayo ganacsi lagu amaanayo iyo waxyaabahaas laakiin anaga sababta ugu weyn kulmay waxay tahay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan barano ahkaamta bisha soo socota ramadaan iyo shacbaan iyo waxyaabaha la mid ah iyo ogolaada inaan sii bilaabo mawduuca walaalaha ay noogu talagaleen oo ah ramadaan رمضان عمر يا كهد ليا أنا إن شاء الله تعالى شعبان بشن هذا كجرنا يعني إن شاء الله تعالى وحيابان كتل مامي دونا حديث وحاجته أي سوغرنا يس عائشة بخاري مسلم أي صحيحنا يان وحيلاذا هي عائشة وحيلاذا هي نبي صلى الله ما نأكن بالأسيغة أردن أول صومي نبي أنا نهي رمضان ما نأكن إن بدن نبي أسوميو أنا نهي شعبان يعني شعبان النبي صلى الله عليه وسلم آد أسوميي سؤال شو حي تيوان ما حي سببت النبي صلى الله عليه وسلم شعبان أسوميي وما حي حريك أي لا بيش شعبان بيش هذا كجرنا رمضان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن بدن أسومي شعبان وما حي سببت كل لسي إن أسكت دياري رمضان متك أوهري وحيت هي وان أغنى عيارت أدوك إتيسن بالله مكور محالة سمايا ترينين بدن أيالا سمايا سومان فارو ما لو سمينا ترينين كاس ترينين وحالو سمينا وحيتا بيت سترايت وحالة ربا إلا بدي سومان ترينين بدن أيالا سمينا فارو بيت سترايت وحالة ربا دولة تلدون إلا سمايا إلا سمايا مكا ترينين بدن أيالا سمينا هذا آديس ودن كلا هذا آديس أمريكا دبي هذا آديس محاسميني سأتركا سي ديارني سفرك واسكوسي ديارني سومان صوبتوا محادربتا إن maalintaas aad safaraysid waxba aadan iloobin safarkaagan ay noqoto safar aad ku raaxaysato imtixaanka exam inta aan la gaarin koob maxaa la sameeyaa qofka uu isku diyaarinaya Soomaan uu baranaya leera ufna badan uu sameeyaan vant wuxuu rabaa examanka in imtixaanka inuu soo qaado uu ku guuleysto martida intaysan ku iman koob maxaa la sameeyaa guriga waa la diyaarin cuntada waa la diyaarin cunto kasi macaana la diyaarin sababtoo waxaa rabtaa maalintaas qofka martida markuu yimaado in soo dhaweyn qurux badan uu helo cunto macaan badan oo si fiican u soo dhaweysid sidaas oo kale weeyaan ramadaan waxaad rabtaa waxay tahay dambi dhaaf waxaad rabtaa waxay tahay in janno aad ka mid noqotid kuwa jannada gala kuwa naarta laga badbaadiyo kuwa ajar badan la siiyo in rabbigaaga aad u sii dhawaatid maxaad sameynaysaa marka aad ku sii diyaarinaysaa midka ugu weyn aad ku sii diyaarinayso waxay tahay soon waad soomaysaa midka labaadna waxay tahay yani nafsada maskaxdaada ayaad laqab yani qofka insaanka ah ramadaan inta aan la gaarin koo hadda aad sii soontid hadhow ramadaanka waad la sii qabsanaysaa way ku fududaanaysaa laakiin haddaad ramadaan un ayaa bilaabaya markaas waxaa laga yaabaa nafsadaada intay la qabsanayso in aad dhib darantid laakiin haddaba haddaad soontid qur'aan aqris haddaad bilaabdid haddaba haddii oo taacada ilaahi subxaanahu ku dadaashid هذا رمضان كم مكة لك يكون قنيسة صوبت المحيط خذين تاو نقطة وأبرت نفس ده وأبرتي وحلو بقى مكة قفك هذا بقى إنه سي صوم وسكوسي ديارية متكس الدحابنا وحيته وحيكون سنيسة وحيته هي فضل يا إلهي هي بشهر رمضان يعني وما حي واحد يسكت ديارنا وبالوين وبالرمضان يعني إله سبحانه وتعالى أنا نوت دوتي وبالأجر كيسة أنا أريد إلا إلهي ما هنا ولا لا يلوحير إلا فكرة قف أبها دويل كيس وكيرا ويل كيرا وحن الديارية هدية قالية المسا أي قياسي سهدية هذا واحد على بقلال يورس كذا لا بقول سدح بقول يورو هدونين جناح ستة ويرادو أنا الشقالية متكملة وحن الديارية هدية قالية المسا أي نقول نسا ونين جناح ستة وهدية بقلال كن يورس ومان نم مدحوينها هدو يرادو أنا شعب كي متكملة وحن الديارية هدية قالية ومدحوينه ما قلت هدية إني نقول كتو ملايين يورس كذا كورما هدو إلهي سبحانه وتعالى بقرك متك جعميس وحول بيكوجته وليه هاي وحان أدياري أدومذي وناكسن أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وحان أدياري أدومذي وناكسن وح قلب أيس ولي كل عن دقنا ولي أيس مقلن إلنا ولي أوصل أكل جنة
hadiyad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sameeyey boqorka gacmihiisa wax walba ay ku jirto uu leeyahay addoommadayda ii soomaya aniga unba abaalmarinaya soo haddaad salaad aad tukatid ajarkiisa waa la yaqaanaa sadaqada haddaad baxsatid ajarkiisa waa la yaqaanaa qur-aanka haddaad hal eray aad aqisid ain letter tin kiir waxaa lagu siinaya ajar blowninga lagu siinaa laakiin soonka nabi sal slam wuxuu leeyahay ilaahay asiga ayaa iska leh asiga ayaana abaalmarinaya yacni qof og ma leh waa unbeperfect ma lahan limit ma lahan bibalda ma lahan waa unbeperfect ajarka waa mid aanan la soo koobi karin qofku waxaa loo baahay marka in ramadaankaas uu isku diyaariyo maalin walbana habeen walbana ramadaankaas ilaahi subxaanahu wa tacaala addoommadiisa wuu u dembi dhaafaya habeen walba ka mid ah bisha ramadaan taas waa kow nabi sal slam waa la weydiiyey waxaa la yidhi nabi maxamedow waa maxay waxaan ku aragnaa bisha shacbaan in badan aad soomaysaa sababtu maxay tahay nabi sal slam wuxuu yidhi shacbaan waa bil dadka ay ka mashquulsan yihiin waa bil u dhexeeya rajab iyo ramadaan dadkana way mashquulsan yihiin waa bil sidoo kale acmaasha loo bandhigaya ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha sanadka aad qabanaysay oo dhan waxaa loo bandhigayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaana jeclaystay buu leeyahay nebiga in acmaashiida loo bandhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala anigoo sooman allahu akbar anigoo sooman ayaan jeclaystay camalkayga in ilaahay loo bandhigo walaalayaal tusaale haddii qof isbuuca soo socota uu leeyahay maxkamaduu leeyahay wuxuu rabaa maxkamadaas in uu ku guulaysto caddeemo badan uu soo qaada soomahan wuu ka fekerayaa maxaad dhihi doontaa haddii su-aashaas lagu weydiiye maxaad ku jawaabi doontaa maalintaas uu isku diyaarinaya soomahan in wuxuu rabaa maalintaas dembigaas la dhahay waad samaysay ama dembigaas lagu soo oogay wuxuu rabaa inuu ka guulaysto in la yiraahdo waad ku saxsan tahay caddeyn walba uu soo qaadaya wax walba uu sii diyaarinayaa maalintaas ka hor wuxuu la hadlayaa advokaatigiisu la hadlayaa wax walba uu sameynaya sabab walba uu qaadaya soo maahan maalintaasna waa maalinta acmaashaada aada loo bandhigaya rabbigaaga caza wajal acmaashi salaadii aad tukanaysa qur-aanka aad aqrinaysa cibaadada sanadka oo dhan marka waxaa loo baahan yahay haddaba in acmaashiina aan wanaajino oo rabbigeena usii dhawaano salaada qofka inuu ku dadaalo waalidiintiisa inuu u baari sameeyo iyo wix la mid ah 15 shacbaan markii la gaaro nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay in ilaahay subxaanahu wa tacaala 15 shacbaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka dhan dembigooda uu dhaafaa addoommadiisa oo dhan dembigooda uu dhaafaa ilaa laba maahane xadiiskan si fiican aa u dhegaysan waa xadiis cajiib ah ilaahay subxaanahu wa tacaala 15 shacbaan dadka oo dhan dunuubtooda uu dhaafaya ilaa laba maahane cajiib labadaas maxay sameeyeen midka ugu hore nabi sal slam wuxuu yidhi waa midka shirkiga ku dhex jira yacni cibaado loogu talagalay ilaahi subxaanahu wa tacaala ayuu dadku u sameynaya yaa loo sujuudaa allah salaada yaa loo tukadaa ilaahi subxaanahu wa tacaala asigana dadka ayuu salaad u tukanaya dadku u sujuuda dadku wax weydiisanaa dadku ka cabsanaya sida ilaahay ugu cabsanaya oo kale iyo wix la mid ah shirki waa dembi weyn kow midka labaadna waxay tahay midka mu'miniinta kale dadka kale qalbigiisa xasad iyo xiqdi iyo waxyaabahaas ugu jira midka dadka dulminayo midka dadka xasdayo midka maanta oo dhan hebelaayo ma aragtay hebelo ma aragtay maanta dad kale ka hadlay dad kale xamanaya iyo midkaas waa cajiib yacni maalinta qiyaamo ilaahi subxana wa tacala wuxuu tilmaamay inay tahay maalin aysan maal iyo awlaad anfacayn ilaa qof ilaahi subxaanahu wa tacala la yimaado maahana qalbi fayow biqalbin saliim qalbi oo xiqdi iyo dulmi iyo waxyaabahaas oo dhan ka nadiif ah waan dareemi karaa qofkan laga yaaba inuu nolol maalmeedkaaga qofku wuxuu la kulmayaa waxay tahay qof dhibaataynaya qof xamanaya qofaa ku caynaya adoo socdo qofaa wax si kaa sheegaya wax aadan sameynaan leeya waad samaysay waad dareemi karaa way xanuun badan tahay way adag tahay in qofkaas aad iska cafisid laakiin ogow dembi dhaafka ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo ajarka ilahi subxana uu ku siinaya ayaa ka badan nabi sal slam wuxuu tilmaamay waxay tahay maalin asigoo saxaabadiisa sidan oo kale la fadhiya wuxuu yiri waxaa soo gelaya nin ahluljanna saxaabiyaa soo galay saxaabi iska caadi ah oo saxaabada iska caadi ah baa nin saxaabi baa soo galay hadda maalin labaad nabi sal slam wuxuu yiri waxaa soo gelaya nin ahluljanna ka mid ah ayaa soo gelaya albaabkan saxaabiga ayaa soo galay hadda maalinta saddexaad nebiga sidaas ayuu yiri ninkii ayaa soo galay haddana
صحابة متكمل ده وحوي وإنا غادية وما حي نكان سببت الجنة كليسي محلو سمي أو كدقة نكان أهل الجنة هو باري نكي أيو لا سيحلي نكا وحوي غاني بوري ما إستي وحان ربا إن سدح مان هذا كل سيحلي وحوي ربا إنهم بارو سببت نكان كليسي جنة ولا سيحلي أعمال بدل ما أحكي نكان صلاة الليل بدل ما استاجيو مالتي مسوم يوالين إسك عادي نورمال يعني عادي وقف عادي صدح لما المكو أعمال بدل نكان أوسن سمين هو يدي وحكيري أنت أنت عن كوشاي أنا صوبت صدح لما أقول سيحنا ما أنا بروح هي سنة لكن وحن بارع صوبت هذه الجنة وكجلسي إيش شك ستة وحكيري والله أنا وحكي ما سمي التاني لا سمي صلاة وكذا وسكسو معاد يعني واحد بدن كلا إكسترا ما سمي واحد كلا دو واحد كلا ما سمي وزائد لكن هل من هجت أنا سميه أنا رجينا إن متكاس أي تاي صوت الله سبحانه وتعالى جنة يوجلي أو جنة اللي هو بشاري محيطها يبوير وتويري أنيجا أنت أنا سيحن كور دتك أنا عافية قلوب كذا وحن سيحذا أصو سافئة والله هو ده يكون معانا يعني البعث نسميه وحاله وقاعدين قفك إن عافمات كيس يوفي عنتاي مسكحليس أسيجا يوفي عنتاي دتك عافي وما عافينيس إنها تاي أديك ضعيف لكن أود أي كويا شنيسة دتك إسك عافي وما عافينيس عافينيس إن يعني ضعيف أتى هذا الشيء لكن أود قف كويا شنيا دم بداف يوحيابا أسيجا أي يوفي عنتاي عافمات كيسة يوحياباس أدونك ويجابنتهاي أدونك ويكوبنتهاي ممتنا إن قلبينا اسكو حسن يوحيابها لمت نبي يوسف عليه الصلاة والسلام ولا ليس عيلك كوريدين ولا قضي وحال يغي هذيك وزني ستي أنت استبات مكو صومر كذب ولا ليس مكي دباتين أسيقو بقرة ولا ليس مكي أي مادين وحيكو يغاد ولا لو نعرف قلدان قالني نبي يوسف أسيقو إتاست دباتي محودها يعني وإذن عافية عجيب قلبي قفية واسداس عفيس كقفك وإنه كنت ذا إله والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هو ذاتك عافينا يا وكنت الله سبحانه محسنين أهل الجنة يكنت الله سبحانه وتعالى وأنك أفرتني أفر مرة يقص أروت أريجا عفيس وعن كنت سنيسا وحيتا إن لو بها يقف قدتك إنه عافية بل نوم محمد صلى الله عليه وسلم طائف مكو آذي مكلة دقحي كذب أي أسيقو ديق يعني أجيكي سكدة أي ملك أياوي بتعوكي وحدي أمرتا إن قوم كاس يعني لبض بورو أسكو كان أهلاجو أنا يا متكمل ده هدي قف ودباتين لها أو ديق وكذابين لها كذب ملك وإيمان لها وكذي لها ما هلاجا ما حد إله طول كأي عين كأي صمد أي بورها كل أسكو كان هلاج يعني قف عيلها هاي سمعن لكن النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا جوابه وحيتها هاي مي وحرجينا إياه إن طبقوا عروض تدري دونان إن نقون دونان دتوناكسن نبي صلى الله عليه وسلم قراش مكة دباتين كذب أو مكة أوفرتي أود مكو يشتي كذب وحكويري اذهبوا اسكبح وإذن عافية حر آياتهم مكو حلو بان قفك إنه كنت ذا عفسك مكة شني تمكة الشعب الله سبحانه وتعالى الدوم دي سنو في غنية ومالي تسوق أعماش الله سبحانه وتعالى ربنا إجايو الدوم الله سبحانه وتعالى لما قلبي قدو في غنية لما نقدم بدافية إلا الله ما هن متك الشرك يكسوجن يو متك sidoo kale dadka xasday oo qalbigiisa xasad iyo waxyaabahaas oo jira maahane qof waxa loo baahan yahay marka in hadda uu ramadaan isku sii diyaariyo haddaba isii diyaari haddaba soonka sii bilow haddaba dambi dhaaf Ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiiso oo aan aqis bilow salaad bilow yani ramadaan waa bishi farandrin noqon lahayd qofka hadda aad tahay qof ka sii wanaagsan قفك هذا أتاي قفك سي وناكسن يعني والدين هذا سي عاوي وأنا أقصك كدذال يوحيابا صودا لأن يرى وحندي له وحيته هاي mijn advies aan jullie is dat jullie gehoorzamen aan jullie ouders. Gehoorzamen aan jullie ouders. En dat betekent dat je hun luistert, dat je accepteert wat ze zeggen en wanneer je met hun praat dat je met rustige stem en dat je niet je stem hoger zet. Van ja en dat je meteen discussie met hun gaat. Nee. Want yani, een van ons, Hadile Hirado, pak deze bal 9 maanden lang. 9 maanden lang een bal, voetbal of basketbal. Hadile zie je, de Hirado 9 maanden lang. Hou het zo vast. Wat zou je dan vinden? 9 maanden lang een bal zo vasthouden. Als je naar de wc gaat, meegaan. Als je slaapt, meeslapen. Als je staat, dan moet je ook meestaan. 9 maanden lang een bal zo vasthouden, dat is toch lastig?
Dat is toch irritant? Maar onze moeder 9 maanden lang, yani, aloshila kujene. Elke keer als ze ziet, weet jullie wat ze ging zeggen? Oh, zo schattig. Ilahi, ik of wanneer ik ze ging dua doen, dat jij zo'n goede mensen wordt. Dus dat is belangrijk. 9 maanden lang. En tweede is de daden. De beste wat Allah van houdt. En de beste van alles is dat je ouders gehoorzaamt. Vooral je moeder. Dat je hun helpt. Dat is echt belangrijk. Dus mijn advies aan jullie is dat jullie gehoorzamen aan jullie ouders. Gehoorzamen aan jullie ouders. Wie van ons had ooit onverwacht verrassing een cadeautje naar hun ouders gebracht? Zomaar, cadeautje. Want wij verwachten alleen maar cadeautjes van onze ouders toch? Wanneer je iets aan je ouders geeft, weet jullie hoe blij ze wordt en zij maakt dua voor jou. En die dua is meteen, dan gaat Allah meteen accepteren. Dat is een van de dua's die Allah meteen gaat accepteren. Een van die is dat wanneer je ouders dua voor jou maken. Wanneer ze zeggen Allah, laat hem zijn diploma halen, etc. Dan wordt het makkelijk voor jou. Dus dat is belangrijk, gehoorzamen aan jullie ouders. En het tweede is Koran, dat jullie memoriseren en dat jullie, want bij het begin is het moeilijk, ik kan wel snappen, maar jullie moeten wel je best doen. Want elke letter dat je leest, krijg je 10 ajr van. En Yawm al-Qiyamah, laatste dag, de dag der oordeels, laatste dag, dan krijgen je ouders ook meer beloning door jou. Omdat je heel veel Koran hebt gelezen, ze krijgen meer beloning. En ze gaan ook zo prinsesjurk krijgen, zo licht alles. Inshallah ta'ala, doe jullie best. En het is bijna Ramadan. Maak alvast een planning, wat je gaat doen, al die dingen. Want het is een maand van dat je dichterbij naar Allah toe moest gaan. Dat je al die zonden, al die foute dingen die je hebt gedaan, dat je terug kan keren. Dat is echt belangrijk, inshallah ta'ala. Succes, barakallahu fiek. Amin. inshallah ta'ala dhamaan Abu Bakar waxaa leenahay jazakallahu khair anagana kuwii waanada qaato ku camal fala ilaahay naga dhigo kuwii maxaa la 15 Shacbaan kuwii loo dambi dhaafo maxaa lahaa danwaanada walaalkeena siiyay kuwii ku camal qaatana Allah naga dhigo anagana waxaan rajeynaynaa kulligeen dambi dhaaf maxaa lahaa oo ilaahay naga siiyo asagana waxaan leenahay barakallahu fiik haddana waxaan kusoo dhaweynaa inshallah ta'ala Umar Faaruq asagana barnaamijkii ramadaanka iyo أحكامتي سماشوا إنه سوى دونا إن شاء الله تعالى. أنا وحن جعلنا مزديق إن شاء الله. دور عليك إيه؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العظيم المنة وناصر الدين بأهل السنة وفقنا إلى الهدى حمدا كثيرا ليس يحصى عددا. بعد حمد الله إني أشهد أن لا إله إلا إله واحد الفرد الصمد من جل عن زوج وكفء وولد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. أما بعد walaalyaa waxay mahad aad u ballaaran u sugnaatay Allah subxaanahu wa tacaala allahaasoo maanta halkaan iskeen keenay. markan waxaan rabaa si kooban in aan aga hadlo arrin maanta aad iyo aad inoogu badan oo ah xanta iyo dad isku dirka iyo dadka inaan wax ka sheegno. waxaad u malaysaa arrintaasi maanta in nala dhahay qofkii sameeya ajir badan ayuu ka helaa. waxaadba u malaysaa in nala dhahay xalaal ayaa inoo tahay. Allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisana wuxuu ku dhahay ويل لكل وحي هلاك أصبناتي همزة اللمزة ومتوح والبدرة دتك عابية دتك وحك الشيقة أيوه الله سبحانه وتعالى هلاك أي أصبناتي نبينا صلى الله عليه وسلم وحوضهي
لا يدخل الجنة الله سبحانه وتعالى جنة ديسا مقلو النمام وكان تدك اسكدرا كان هذا كان كقادة قفك لأجية قفك النبي صلى الله عليه وسلم وحود هاي جنة مقلا وحاد عظيم آل النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحاب تيسا إن أي صومرين قبري markay qabri soo mareen kadib ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay laba qabri ayuu arkay labadan qabri wuxuu dhahay hadda ayaa la cadaaba waxa loo cadaabayana wax weyn ma ahan midkooda wuxuu dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam najaasada iyo kaadida ma uusan iska ilaalin jirin midka kalena nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay wuxuu ahay mid dadka isku dira mid hadal qaada kan kale u geeya saas darteeda ayuu cadaabul qabri ku mutaystay waxaan filaa qof aan maqlin inuusan nagu jirin xadiiskaasi oo aan maqalnay saasay tahayna aan weli dadka isku sii diroono ma waxaad u malaysaan cadaabul qabri inuu fudud yahay mise nabiga sallallahu alayhi wasallam hadalkiisa ayaa inoo sahlanaaday maxaan iskiga dhaafi waysanahay hadalka aan kala qaadeyno nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa loo yimid oo waxaa la dhahay yaa rasuulallah alla rasuulkiisiyow inna fulana heblay taquumu llayl habeenkii dhan way taagan tahay salaatu llayl ayay tukataa wa tasuumu nnahaar maalintii dhanna way sooman tahay sidoo kale waxay heshana way sadaqaysataa laakiin hal dhib ayay leedahay dhibkaasi ay leedahay waxaa waaye dariskeeda ayay wax ka sheegtaa dariskeeda ayay ka sheegtaa carabkeeda lagama ammaan galo ee alla rasuulkiisiiyoo ka waran nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay laa khayra fiiha wax faa'iido ay leedahay ma lahan wahiya fi nnaar waxayna galaysaa naarta waa maalintan ayay soomaysay habeentan ayay tukanaysay waxay naar ku gashay waa hadal oo kaliya ee dadka sheegtay maxaad u malaysaa anagoo maanta salaada waajibka aan ugu adag tahay oo aanan soomin oo habeenkii aanan salaad u taagnayn oo aan fududaysanay aan qof wax ka sheegna ka waramaba sidoo kale waxaa dhacday sidoo kale nabiga ayaa waxaa la dhahay sidoo kale waxaa jirto islaan kale ayadana waxaa waaye waajibkeeda bas ayay tukataa oo salaatul layl ima tukato waxay heeshatana way sadaqaysataa laakiin hal mid ayay ku fiican tahay oo waxay tahay dadka iskuma dirto dadka wax kama sheegto ee alla rasuulkiisiiyoo ka waran nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay hiya fil janna waxay gali doontaa janna marka wax fudud ma ahan in aad qof مسلم أد وح كشيءتي أكشيءتي أم أد حمتي وح سهلا ملهن ما تدب كنا هايست أيا وحكمت ضد أياجرو دين تكفي عن سلادة تكنايو الله كعب صنايو وحي أركا يا قفحن قف تكنيني مركز حمرا يا قف كسبلايا هاتارك صلاة وحي أركا يا قف سيجار أما جات عنايو كدب محيلها يا قف كاسها وخمريست أمساس أو أصلي أي حمرايا ما حد ليس مركز حمريست يا كوبني إنا واحد كشيتد ما حد كأبتها بريت أديك حالة هذا ما يشاء يكتم بين تونتو أصلا حالة دي ما يشاء يكتم بين تونتو ما حد كأبتها مركز كقص ليست أو كفرح ليست قف حماتي سأموحس ما جاء جنة نار مالو كقرية ما حد كأبتها هذا كهر أيا واحد على ويل أيا واحد تونت الجبر لكن واحد على جبرتي إنه قال هاي أو سم مسلم هين مركزها وحالة هاي ويل مسلم أنا جبرتي إنكم درينو ويل كيات أيو أمر جودي أصلا مسلم أيو هاي أيدا أيا قال هاد لكن كتب أيا واحد على ويلكي مركز لودي ذي كتب أيو مركي لجاري حلق أو لمناي أيو وحود هاي جبرتاسي هذان أدونك كواي آخر إنا كواي مرة حتى نار أن إسلقلنا سداسي درت هذا حلقان وحان كبحيا دينتنا محمد صلى الله عليه وسلم أو وحان قنا يا قال أيو سيدي كوكتي كتبنا وإنتي سيدي أيو كل إنتي كتبنا وحاد علي جبرتنا أيضا إن لجاري حلق سكرات الميت أو مرتي أيضا وحيد هذي هبلاه هدان أدونك كواي آخر إنا كواي مرة سيدا سدرت هذا حلقان لجوجو وحاقر يا دين إسلامك وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يد هذي كذبنا ويدمتي قال أي أهد مسلم لما أي كلمتي مسلم أيو أهد قال لما أيو كلمتي هذه كان محادك أكتي بالحارة هذا ما يشاء يكون بين توت مركا قف مسلم وحكا شيء يسد سيدوك لو واحد أعضي إن أوجري نين إمام أو أفرت سنة مؤذن مساجد كأدم جري أيانكي وحال وايا هالأسبوع يا لوايا دتك ويسوديين أوي أيا لهاي
kadibna waxaa dhacday in la raadiyey waxa qof ayaa wuxuu dhahay tuulo ayaan ku arki jiray tuuladaasi hala taga tuuladii ayaa la imaaday waa la weydiiyey qofkaasi ma aragtay gabar ayaa waxay dhahday haa aniga ayaan is aroosnay 3 beri ka hor ayuuna dhintay oo 2 beri ayaan is qabnay markaasay dhaheen aaway markaasay dhahdeen waan duugnay markaasaa la dhahayna soo tus qabrigiisa misna qabrigii ayaa la imaaday oo waxaa la arkay calaamadul kirishtaan oo ka taagan tahay aad ayay u naxeen dadkii oo waxay dhaheen qofka muslim ayuu ahay saane lama ogolo waa maxay sababta asaan ugu duugteen markaasay waxay dhahday aniga markuu aroosay shuruuda aan ku xira ayaa waxay ahayd in oo gaal noqdo marka kaniisad ayuu gaal ku noqday saas darteeda ayuu ku dhintay waa nin 40 sano muadin ahay marka adigana berito xaaladaada meesha ku dambeysay maxaa ka og tahay waligaaga qof muslim ah wax ka sheegin xumaan walba oo ku jiro ha ka sheegin wax ogaaw in aysan wax fudud ahayn teeda kale maanta markaad qof xamanaysid ama qof kale wax isla sheegaysan qoslaysid ma ogtahay qofkaasi inuusan beri wallahi kula galaynin qabriga wallahi maalin ayaa la gaari doonaa oo aad tuugtami doontid oo aad dhihi doontid rabbi irjicuun allow icali allow naftahayga qaadin maanta kadib qof wax kama sheegi doono maanta kadib qof ma xaman doono allow hay naftahayga qaadin sababtu maxay tahay lacalli a'malu salihan fima tarak maanta ka bacdi waxaan go'aansanaa in aan wax walba wanaag ah aan samayn doono aan salaad tukan doono aan qof damba wax ka sheegi doonin ee allah waxaa dhihi doontaa ma laga yeeli doonaa kallaa innaha kalimatun huwa qaa'iluha ma jirto ayaa la dhihi doonaa waa goorme wallahi waxaa dhici karto saacad ka bacdi in asaas ku tuugtamaysid ma jira qof hadda ii ballan qaadi karo in oo dhihi karo wallahi waxaan huwa 100% in aan berito noolaanayo ma jira qof saas dhihi karo والله waxaa dhici karto noloshaada in ay haysaa hal saacad oo kaliya ka dhiman tahay waxaa dhici karto noloshaada hal beri oo kaliya inay ka dhiman tahay waxaa laga rabaa in aad u cibaadaysatid adigoo xilli walba dhimanayo marka sidaas darteeda qof walba ogaaw nafta haday ka baxdo isla markaas magacaaga inuu isbedeli doono la dhihi doono meydkii halo raadiyo qabriga halo soo qado meydkii halo raadiyo qofkii dhaqi lahay isla markii magacaaga maanta kadib ma awoodid inaad qof xamatid maanta kadib ma awoodid qof inaad wax ka sheegtid waa dhimatay qof ku rabo ma leh dadku kuugu jecel adduunka maxay sameyn doonaan in ay maracad oo kaliya kugu xiraan ay qabri ku geen doonaan ee kuugu soo doogi doonaan kaaga soo tagi doonaan maalintaasi maxaa ku hadli doontaa saaxiibka maanta xumaanta ku furaayo maxa uu ku qaban karo malahan qof walba maanta ayaa fursad haysata daqiiqadan saacadan la jooga ayaa fursad haysata toobadkeen xumaantaasi ka bax iska dhaaf allah subhanahu wa ta'ala ulaabo qof aad wax ka sheegaysidna iska dhaaf qof dambaha xamanin nabigeena sallallahu alayhi wa sallamna wuxuu dhahay man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir qofkii allah rumaysan adduun iyo aakhira maxaa laga rabaa falyaqul khayran aw liyasmut ha ku hadlo hadal wanaagsan ama bahaba iska aamus haddii kala soo ma ahan hadal wanaagsan ku hadal hadda kor ayaa waxaa dhacday nin boqor ahay ayaa cunug ayuu dhalay kadib ayuu cunugii wuxuu u geystay nin sheekh oo wuxuu dhahay diinta ii bar waayaha ayuu dhahay sheekhi wax kale ma oosan barin wuxuu u sheegay faa'iidooyinka ay leedahay aamusnaanta kadib xadiiskan ayuu soo qaatay kadib waxaa dhacday cunugii maalintaasi kadib in oo go'aansaday in oosan bahadlin wuu iska aamusay qof kasta ayaa la hadlaa ma bahadlaayo boqorkii wuu yaabay markaasoo wuxuu dhahay cunugeyga qofkii ka hadal siiya waxaa igu balan ah in aan siiyo 100 kiilo oo dahab ah dadkii dhan waxay isku dayeen cunuga inay ka hadal siiyaan laakiin waa ka hadal sii waayeen maalmaha kamid ah ayaa waxaa dhacday cunugiyo socda ayaa gadaashiisa 2 nin ayaa soo socotay oo waxay raadsanayeen wax ay ugaarsadaan oo ah shimbir ama waxaasi kadib ayaa waxaa dhacday shimbir ayaa geedka qeelisay markay qeelisay kadib labada nin way arkaan maysan u jeedin shimbirtii ayay falaar ku dhuftaan cunuga hortiisa ayay ku soo dhacday kadib ayaa cunugii hadlay oo wuxuu dhahay idaa sakayti aflaxti shimbiray maanta dad iska aamus lahayd laguma dili lahayn laakiin adaa afkaada isku dilay adaa qeeliyay sidaasi ayay kuugu soo arkeen labadaani nin aad ayay u farxeen labadii nin oo sababtoo ah waxay ogaayeen cunugaani qofka ka hadal siiyo in 100 kiilo dahab la siin doono kadib ayay soo carareen waxay u imaadeen boqorkii markaas waxay dheen cunugaaga oo hadlay ayaan aragnay maanta saas miya aad ayuu u faxay boqorkii wuxuu dhahay leekeena cunugeyga hadduu hadlo waa leedihiin 100 kiilo dahabki ah
kadib ayaa waxaa dhacday cunugii waa kana ma bahadlaayo wuu aamusan yahay aabahay wuu hadlaa ma dhehayno waa aamusan yahay boqorkii aad ayuu u xanaaqay markaasoo dhahay labadaa nin been ayay sheegooyin min 100 karbaash lagu dhufto labadii nin ayaa la waday 100 karbaash ayaa lagu dhuftay kadib ayuu wiilka hadla wuxuu dhahay idaa sakaytuma aflahtuma haddaad iska aamusi lahaydeen maanta 100 kan karbaash niiguma dhici lahayn laakiin idinka ayaa afkiina ku kaastay marka sidaas darteeda waxaa dhici karto hal hadal oo kaliya aad ku hadashid in aad wallahi naar aad ku mutaysan doontid hadda goor xilligii nabi heer bani israa'iil ayaa waxaa dhacday nin ayaa aad iyo aad u wanaagsanay xilli walba ayuu Allah ayuu tukan jiray salaada ayuu ku dadaali jiray nin aad u wanaagsan ayuu ahay midna wuxuu ahay mid xumaan ku jiro salaad aan tukanaynin xilli walba xumaan ayuu ku jiray kan markuu arka markaasuu dhigi jiray ilaah ka cabso xumaantaani iska dhaaf kan wuxuu dhigi jiray adigii ani allaheena noo kala bax wax kaama galin hadda maalin labaad ayuu u imaaday kadib sidoo kale ayuu ku dhahay maalin saddexaad sidoo kale ku dhahay ninkaani wadaadkaay wuu xanaaqay markaasoo wuxuu dhahay laa yaghfirullah lak Allah subhanahu wa ta'ala kuma dambi dhaafi doono naarna ayaa gali doontaa kadib ayaa waxaa dhacday labadooda inay isla dhinteen markay dhinteen kadib Allah subhanahu wa ta'ala ayaa kii wadaadka ahay sheekh ahay intaasoo sano soo tukan jiray oo Allah la hadlay oo wuxuu dhahay ninkan markaa dhehaysid laa yaghfirullah lak adiga Allah kuma dambi dhaafayo naar galaysa adiga ma naxariisteeda hayo adiga ma og naxariisteeda Allah wuxuu amray kii sheekh ahay wadaadka in naarta la geeyo kii kalena wuxuu dhahay Allah oo macaasi ku jiri jiray raxmadeeda naxariisteeda waxaad ku gashaa jannada sidaas darteed ogaaw hal hadal wallahi maad aad ku hadashid ayaa waxa dhici karto in aad ku mutaysatid naar marka sidaas darteeda waxaan oo laga baahan yahay ikhwaani la'alla bahday dhacdo in wax noo la soo sheego maxayna laga rabaa Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku dhahay ya ayyuhalladheena aamanu in ja'akum fasiqun binaba haduu niikeeno qof faasiq ay Allah subhanahu wa ta'ala oo ku tilmaamay oo faasiqa hadal haduu niikeeno fatabayyanu iska hubsada hore ha ka qaadanin hadii lagu dhaho heblaay adigay ku caanays hore ha ka xanaaqin ha ka caanin sababta ayadan soo degtay maxay ahayd nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa ni saxaabi wuxuu u diray qoom oo wuxuu dhahay oo zakada ka soo aroori haye ayuu dhahay ninkii wuu soo baxay laakiin ninkaani iyo qoomkaasi kisto dagaal ayaa qabiilkooda ka dhaxeeyay qoomkii waxay maqleen in nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo nin soo diray aad ayay u farxeen zakada way iska soo arooriyeen waxay dheen ma basuugi karno intuu ninka ka imaanayo waa inay jidka aga hortagnaa jidka ayuu soo aadeen kadib ninkaani meel dheer ayuu ka arkay markaas waxay isdheen wallahi qoomkan waxay soo baxeen inay ku dilaan ay rabaan ninkii meesha ayuu ka jiireeyay nabiga ayuu u tagay markaasoo ku dhahay Allah rasuulkiisiyo kuwiisa zakadii way soo direen anigana way dili rabeen nabiga aad ayuu xanaaqay saas miya bas waa haday saas tahay way gaalowen waa in dagaal lagu qaada ayagoo dagaal lagu soo qaadi rabo oo Allah subhanahu wa ta'ala aayada soo dajiyay oo wuxuu ku dhahay nabigiis in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu qof faasiq hadal hadoo niikeeno iska hubsada oo hore ha ka qaadanin hadda qoomkaas hadii saas lagu dhameyn lahay ka waran beenta marka ogaaw qof walba oo hadal ku keeno hore ha ka qaadanin la'alla way badacday waa maqashay qof la xamanay ama laga rabaa in aad ku dhaqatid nabiga sallallahu alayhi wa sallam hadiiskiisi oo ahay man satara mu'mina qofkii u ceeb qariyo qof muslim ah oo mu'min ah satarahu Allah fi dunya wal aakhirah asagana Allah ayaa u ceeb qariyo adduun iyo aakhiraba adiga maanta meeqa xumaan ayaa leedahay meeqa ceeb ayaa leedahay oo Allah subhanahu wa ta'ala ku ceeb qarinooya oo ay dhici kartaa banaanka marka sidaas darteeda la'alla qofkii wax laga sheego waxaan kuugu dardaarmi lahay iska cafi Allah wuxuu yiri wal ya'fu wal yasfahu is'afiya isamaha ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum marabtan miya Allah subhanahu wa ta'ala in oni dambi dhaafo marka sidaas darteeda qofka walaalkaada xumaan hadaad ku aragtid hasha sheegin hadaad ku aragtid 99 xumaan iyo hal wanaag ah halka wanaag sheeg oo halka xumaan 99 xumaan waxa lagaaga baahan yahay in aad qarisid hadaad aragtid qof aan salaad tukanaynin ma ahan iyadoo la buuxinaa qofka salaad ma tukado ama meesha ku ceebaysid oo waxa lagaaga baahan yahay